salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan inaan ka soo qayb galno maanta xafladan lagu daahfurayo markaskan cusub ee lagu magacaabo markas Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax lidaraasat alislaamiya oo ah markas lagu takwiininayo ama lagu diyaarinayo culamaa diin la rabo inay runtii door weyn ka qaataan fidinta diinta islaamka iyo dacwadaba. waa ammaanaynaa waana barakaynaynaa markaskan cusub. runtiina waxaan isleenahay waa markas aad iyo aad wax uga bedeli doona qaabka barashada diinta islaamka iyo daboolidda baahida loo qabo dad culumaa oo runtii kaalinta culummada muslimiinta ah maanta aan rabno inaan ka galno hore u sii qaada. ugu horeyntii waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynayaa una ammaanayaa culummadii fikirkan wanaagsan soo jeedisay iyo intii ka qayb gashay oo ah bal in haddii ceeba uu lahaa nidaamkii xalaqaadku wanaag badanna wuu lahaa oo runtii uu dhammaystiray nidaamkan kale ee lagu magacaabo maxaanku idhaahdaa nidaamkan lagu magacaabo akademigu uu dhammaystiray mid walbana laga dareemay inay jiraan wax xun ceebaa oo u baahan in maaragtay la daboolo in labada qaybood ee xalaqaadkii iyo nidaamkii akademiga ahaa in la isku daro oo la isku dhammaystiro si takaamul u yimaado. waxaan isleeyahay waa hadaf nabiil ah weeye. halkaasna ay ka soo baxaan dad culumaa oo xalaqaadkiina wax badan ka bartay oo faa'iidaystay oo masaajidii lagu diyaariyey oo duruustii cilmiga sharciga ahaa iyo luqadii carabiga intaba si wanaagsan looga diyaariyey isla markaasna sidoo kale nidaamkii akademiga ahaa maray oo jaamacaddii qaybtii shareecada iyadana duruusteedii qaadanaya. waxaan isleeyahay waa nidaam takaamul fiican uu ka muuqdo. aanan rajaynaya inay soo saaraan dadkii culummada ahaa ee runtii kaalin weyn ka qaadan lahaa fidinta iyo dacwada islaamka intaba. waxaa runtii macno gaara siinaya markaska kan iyo takwiinka ama diyaarinta dadka culummada ah marxaladda hadda caalamku ku jiro oo ah runtii marxalad fitnaduna ay badan tahay, shubuhaadku ay badan yihiin, afkaaraha khaldan oo runtii dalka iyo adduunkaba ku faafsan ay aad u badan yihiin. ay ka mid tahay fikirka shiiciga oo la sheegayo inuu aad iyo aad u faafayo, ay ka mid yihiin takfiirku ka mid yahay, afkaaraha kale khaldan ay ka mid yihiin. dhammaan afkaartaas lagulama dagaalami karo qori iyo hub lagulama dagaalami karo. waxa lagula dagaalami karaa in la helo dad culumaa oo xambaarsan fikir saliim ah iyo caqiido saliim ah isla markaasna aqoon u leh culumta shareecada oo runtii soo bandhigi kara wejiga fiican ee diinta islaamka kana jawaabi kara afkaaraha khaldan. marka aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa wasaarad ahaan takwiinka iyo markaskan cusub ee loogu talagalay culummada in lagu diyaariyo. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay aad iyo aad u dadaali doonaan. fikraddaasi waa fikrad saliima. wasaarad ahaanna wixii nooga aadan insha allah waan ka qaadanaynaa. dhallinyarada cusub oo halkan runtii lagu diyaarinayo waxaan kula dardaarmayaa inay culumta shareecada si wanaagsan u bartaan, gaar ahaan takhasusaadka xalaqaadka lagu diyaarinayo markii luqadii carabigii gaar sanad dhan laga dhigo, tafsiirkii iyo culumtiisa hal sana laga dhigo, xadiiskii iyo culumtiisii sanad laga dhigo, fiqhigii oo kale sanad laga dhigo. waxaa imaanaya ayagoo duruustii jaamacaddana wata inay markaas sidaas ay noqdaan dad runtii aad iyo aad culumtii kacab weyn ku leh oo aad iyo aad wax u bartay. gaar ahaan waxaan dardaarmayaa luqada carabiga oo culummadii horena ay ka hadleen ahamiyadda ay leedahay in aad xoogga loo saaro, gaar ahaan dhinaca naxwaha iyo sarfiga iyo adabka oo runtii ay soomaalidu aysan ihtimaam weyn siinin, aadna moodo inay tahay meelaha naqsigu ka jiro. waa u dardaarmi lahaa in runtii adabka islaamiga ah iyo adabka guud ahaan in dhallinyarada lagu tarbiyeeyo oo aad iyo aad loo baro oo kutubta adabka ah ee runtii culumta islaamkuna ay wax badan ka faa'iidaysteen ay ka mid tahay ashcaartii carabta ay ka mid tahay kutubta
raggii culimmada ahaa waaweynaa ama luqada ku fiicnaa ay aad iyo aad u qoreen sida kitaab albayaan watabyiin wagayruhu min alkutub kutubta adabka ah waxay soo saarayaan inuu soo baxo qof aqoon leh oo maaragtay wax qori kara waxna maaragtay sheegi kara luqadana maaragtay kacab wanaagsan ku leh oo aad iyo aad u garanaya arrintaas marka runtii aad iyo aad baan u dardaarmayaa markaskaanina waa markas runtii soo saaraya culummo sharciyada islaamka aqoonta u leh mashaayikhda ugu horeysa ka hadashay waxa qofku khayr uu helo waxa ugu fiican inuu diinta fahmo man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi diin qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ninki shaacirka ana waakiri mal fakhru illa li ahli al-ilm fa innahum liman istahda al-huda adillau وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وهذه حقيقة ذات كنول أو احتركة أو قيمة يلانية أو بلشدة أنفعية أو مجتمع كان أمانك أما ثمام أمانك وذاتك وحبرتي ودين تبرتي وفهنسن بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال wax lagu dhiso adduunka lagu hormariyo adduun iyo aakhiraba waa cilmigana waxa ugu sareeya sidii suldaan qoranaba uu sheegay cilmu kitaabi wa sunna ama cilmu shariica ayaa ugu sareeya waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala fursada qaaliga oo aad hesheen kulli way idinka muuqataa xikmadii sidii ninkii odaga haydii hadlayay oo ku hadlayay waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fursadan maantay ma sahlana in fursadan oo kala la helo laakiin shawaaqishuna waa badan tahay anigu waxaan isleeyahay maamulka jaamacadda iyo odayaashu bal siday ku maarayn doonaan yani fitnadan cusub ee ummadda lagu waleeriyay oo ah facebooka iyo internetka iyo bal sida loola dhaqmi doono ama qaabka looga faa'iideysan doono silaaxaas ee ah silaax du xaddayn dhinacna noqon kara mid wax fidneeya dhinaca kalena ay ka buuxdo khayr fara badan oo looga faa'iideysan karo dacwadii looga faa'iideysan karo barashadii culumta shareecada maktabaadka islaamku ay ka buuxaan laakiin qaabka loo tawjiihinaya waxay u baahan tahay runtii in maamulka doctorka oo runtii nin sheekha ah iyo ragga kale ee wadaa in arinta loo darjiyo barnaamij lagu manage garaynayo laguna kormeerayo iyagoo raggan rag culimo ah haddana in barnaamijkooda waxbarashada si daqiiqa looga warhayo oo la kontrolo oo waliba mobilada iyo waa fidnada aan oran karo maanta waxbarashadii iyo cilmigii wax badan bay dhibaato u geysatay taasna iyadana waa dardaarmaya uu damaynta hadalkayga waxaan ku soo aruurinayaa iyadoo wasiirku uu hadalka dawladda iyo waxa ay maaragtay ka oranayaan meeshan uu sheegi doono haddana anagu wasaarad ahaan maadaama aan nahay wasaaradda cadaaladda macadkan runtii waa garab istaagaynaa fikraddii uu dawladda ku soo wareejiyey iyo ummaddana waa inaan aqbalnaa runtii oo aan u istaagnaa markaskan waxa ugu muhiimsan oo aan isleeyahay runtii way ku shaqayn karaan culimmadu hadda iyo intii u gargaartayba dadaal bay sameeyeen oo markaskii bay bilaabeen laakiin istimraariyadiisu waxay u baahan tahay in la iska kaalmaysto waxa ugu muhiimsan oo dadka Soomaalida ka maqan oo ah waxyaalaha lagu wadi karo culumta islaamka ama u noqon kara masdarna waa awqaaftii weeye waa qabaa marka in waqfi loo inshaa'iyo markaskan noqon kara hadhowdii riicdiisa mid lagu socodsiiyo mashruucan khayriga diiniga ummadda masiirkeeda qayb ka ah iyo mashaariicda kale islaamkaba iyadana waxaan leeyahay wasaarad ahaan waana dhiirigelinaynaa wixii nooga beeganna ama ha noqoto inaynu u qareenno ama ha noqoto inaynu dhaqaale la raadinno ama ha noqoto inaynu wax allaaliyo waxaynu awoodno insha Allah waa ka qayb qaadanayna laakiin waxaan isleeyahay yani az-zakawaat wal awqaaf waa labada masdar oo ugu muhiimsan oo lagu wadi karo maaragtay maraakista islaamiga iyo acmaasha khayriga culimadu waa u dhug leeyihiin laakiin waxaan qabaa in arintaas si fiican looga baaraandego oo ay noqdaan intii maalin walba loo raadin lahaa masaajid looga yaboohi lahaa in la sameeyo mashruuc waqfi ah
oo noqda masdarka laga maalgelinayo maxaan ku yiraahdaa mashruucan oo kale oo ah mashruuc istiraatiiji ah dacwadii iyo masiirkii ummadda iyo khayrkoodiina runtii qayb weyn ka qaadanaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa soo dhaweynayaa waana ammaanayaa waana taageeraynaa anagu dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan insha allahu tacaala ardaydana waxaanu rajaynayaa insha allah mustaqbal fiican college cidlaa ma idin soo gelinaya meeshii culumta shareecada lagu baranayay baad soo gasheen meeshii wuxuu ugu khayrka badnaa lagu baranayay baad soo gasheen ka faa'iidaysta waa fursad naadir ah shaqada iyo mustaqbalkuna ilaahay idankiis waa madmuun biidin illaahi tacaala aad iyo aad baan idii barakaynayaa aad iyo aad baan idii ammaanayaa noqda dad si fiican marar badan way idii soo noqnoqon doonaa culumta sharciga ku dadaala nidaam fiican samaysta waqtigana ka faa'iidaysta 4 sano waa muddo yar laakiin wax badan baad ku taxsiinin kartaan 4 sano dhammaantiinna waa idin salaamaya waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka si uu xafladda noogu xiro